barnaamijka ogaalka dunida. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخيرا. su-aasha 18aad ee kamid ah su'aalaha aad u faafay kuna dhex faafay dadkan muslimiinta ahayn waa haddii muslimiintu dhammaantood rumaysan yihiin hal ilaah, raacsan yihiin hal qur'aan, rumaysan yihiin hal nebi, haddaba maxay muslimiintu ugu qaybsan yihiin kooxo kooxo? jawaabta su'aashani waxaa lagu sheegay qur'aanka suuratu Ali Imraan suuradda 3 aayadda 103. wuxuu leeyahay Allah qabsada xariga alle dhammaantiin hana kala tagina. waa laba adkeen. tan koobaad qabsada xariga alle si awood ah. adkeenta labaad hana kala tagina. xariga alle waa qur'aanka kariimka. alle wuxuu leeyahay qabsada xariga alle yacni qur'aanka hana kala tagina. alle wuxuu leeyahay adeeca Allah rasuulkana adeeca. suuratu nisaa suuradda 4 aayadda 9 alle wuxuu nagu amrayaa inaan adeecno Allah rasuulkiisana aan adeecno oo aanan kala tagin. alle wuxuu ku leeyahay qur'aanka suuratul ancaam suuradda 6 aayadda 159 kuwa ku kala tagay diintooda ee noqday kooxo kooxo ka mid ma tihid, amarkooduna Allah ayuu u ahaaday. alle wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala haddii midkood u qaybiyo diintan qayb qayb ama koox koox, nebiyow adiga ka mid ma tihid. alle subxaanahu wa tacaala ayaa xisaabin doona maalinta qiyaame. balse markaad muslimiinta weydiinayso caada ahaan yaa tahay, qaarkood waxay ku leeyihin waxaan ahay sunni, qaarkoodna shiici, qaarkood xanafi, qaarkood shaafici, qaarkood xambali, qaarkood maaliki, qaarkood diyoobandi, qaarkood bareewali, qaarkood ahlu xadiid, qaarkood salafi, qaarkood jamaaca islaamiya, qaarkood tabliiqi. haddaba nabigeena sallallahu alayhi wasallam muxuu ku sugnaa? muxuu ahaa? ma wuxuu ahaa xanafi mise shaafici mise xambali? muxuu ahaa? wuxuu ahaa muslim. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay qur'aanka suuratu Ali Imraan suuradda 3 aayadda 1 ciise calayhi salaam wuxuu ahaa muslim. allah caza wajalla wuxuu ku leeyahay qur'aanka suuratu Ali Imraan suuradda 3 aayadda 67 ma ahayn nebi ibraahim yahuudi ama kirishtaan, balse wuxuu ahaa muslim toosan. allah wuxuu ku leeyahay suuratu fusilat suuradda 41 aayadda 33 ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. yaa ka fiican hadalka ruux ugu yeeray dadka dhanka allah subxaanahu wa tacaala oo camal fiican sameeyey oo dhaha anigu waxaan ka mid ahay muslimiinta. qaala inanii min almuslimiin oo dhaha anigu waxaanahay muslim. furaha ugu weyn ee dacwada kaasi oo aan ku sheegay dhowr muxaadaro waa furaha ugu weyn dacwada. aayadda ugu ahmiyadda badan qur-aanka ee ka hadlaysa dacwada waxaa lagu sheegay suuratu Ali Imraan suuradda 3 aayadda 64 لأهل الكتاب ku dheh ahlu kitaabow تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم u imaada si aan u xadidno shuruud aan isku waafaqayno. kan ugu horeeya waa ألا نعبد إلا الله inaynan caabudin alla mooye alla kale, الله ولا نشرك به شيء waxna aanan la wadaajin, ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله qaarkeenna qaarka kale ka yeelanin ilaahyo rabbi ka soo haray. فإن تولوا haddii ay jeysadaan فقولوا اشهدوا dhaha oo ka markhaati kaca بأننا مسلمون inaan nahay muslimiin ku xiran allah. aniga waxaan nahay muslim, dhammaanteen waxaan nahay muslimiin. wax ka badan 22 meel oo qur-aanka ka mid a alle wuxuu nagu amrayaa inaan dhahno waxaan nahay muslimiin. ibraahim calayhi salaam suuratu lbaqara suuradda 2 aayadda 128 markii uu baryayay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu allah weydiistay inuu ilmihiisa uga dhigo muslimiin. dhammaan a'imadaas culimmadaasi waaweyne islaamka waa 4 imaam abu xaniifa, imaam axmed ibnu xambal, imaamu maalik, imaamu shaafici, dhammaantood allah ha u naxariistee waan jeclahay waana ixtiraamayaa dhammaantood waa culummo waaweyn oo islaamku leeyahay dhammaantood. haddaad weydiiso abu xaniifa allah ha u naxariistee yaa tahay, maxay jawaabtiisu noqonaysaa? muxuu dhihi doonaa waxaanahay muslim. annaga waan jecelnahay culummadaas waana ixtiraamaynaa. dhammaan waxay dhaheen culummadaas haddii aad heshaan fatwo annagu aan leenahay oo ka soo horjeeda tacaaliimta alle iyo rasuulkiisa ha ictiraafin oo ha qaadanin. waan jecelnahay culummadaasi waana ixtiraamaynaa. dhammaantood waxay u yimaadeen si ay islaamka noogu dhoweeyaan, si ay noo baraan sidaan u tadbiiqin lahayn islaamka. uma aysan imaan inay diinta kala qaybiyaan. alle wuxuu ku leeyahay qur-aanka suuratu nisaa suuradda 4 aayadda 59 yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa xaqa rumeeyow
adiicu llaha wa adiicu rasuul adeeca allah oo adeeca rasuulka iyo kuwa amarka iska leh oo adinka idinka mid ah wa ulil amri minkum yacni kuwa cilmiga u saaxiibka ah ee adinka idinka mid ah sidaa darteed dadku waxay dhahayaan allah rumeeya rasuulkan rumeeya culummadana raaca balse joogsiga meelan joogsi ahayn bay dhigayaan aayadda weli waa ay sii socotaa ma aysan dhammaan waa in la dhammaystiraa aayadda adeeca allah rasuulkana adeeca iyo kuwa amarka u saaxiibka ah ee adinka idinka mid a yacni culummada cilmiga leh haddii aad ku doodaan arrin u celiya allah iyo rasuulkiisa haddii aad hesho culummada dhammaantood inay isku waafaqeen hal shay oo keliya waajibkuguma aha inaad naftaada daalido oo aad wax baarto dhammaantood waxay leeyihiin tuko haddaba dhib ma leh haddana dhammaantood waxay leeyihiin soon dhib ma lahan balse hadday iskhilaafaan arrinkaasi u celiya allah iyo rasuulkiisa haddaba ii sheega aawa mas'alada kooxaysiga aawa kala qaybsanaanta diintu middaa waa wuxuu sheegay xabiibkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixa ah ee ku yaala sunan abi daawuud xadiidka 4579 wuxuu yidhi nabigeena ummadayda waxay u qaybsami doontaa 73 koox haddaba dadka qaara waxay odhanayaan nebigaaba sheega arrintaas balse nebigu wuxuu yidhi way ahaan doontaa ee ma dhihin sameeya rasuulka wuxuu sheegay inay jiri doonaan 73 koox balse ma dhihin waa waajib inaad sameeyaan kooxo diinta islaamka dhexdeeda Allah wuxuu ku sheegay sicad suuratu ancaam suurada 6 aayada 109 kuwa diinta koox ka dhigaya kamid ma tihi rasuulku wuxuu sheegay inay jiri doonaan 73 koox balse ma dhihin waa waajib inaad sameeyaan waxa kale jira xadiid kale saxiix ah ku jira sunan tirmidhi wuxuu leeyahay rasuulkeena xabiibka sallallahu alayhi wasallam waxa jiri doona halka 73 koox diinta islaamka dhexdeeda dhammaantood naartay galayaan hal mid mooyee saxaabada weydiiyeen waa midaas wuxuu yiri waa kuwa aniga raacaya iyo asxaabteyda iga dambeeyay yaani kuwa raacaya quraanka iyo xadiidka saxiixa ah haddaba haddaad raacdo quraanka iyo xadiidka saxiixa ah waxaad ku taagnaan doontaa wadada saxda ah haddaba ma jiraan kooxo diinta islaamka dhexdeeda islaamku waa hal quraankuna waa hal rasuulkeena xabiibkana waa hal waxaa nagu waajiba inaan raacno quraanka iyo tacaaliimta rasuulka Muhammad sallallahu alayhi wasallam بالصيام وأطل مصعدا